hubi inaad burburiso gaarigaasi iyo sidoo kale waliba wixii ama qofkii kugu marqaati furi lahaa. tan waxay ahayd fariin tilmaan ah. qofka u imaanaysana ma uusan ahayn qof dawladdu shaqeeyo ama askari ama sidoo kale xitaa gacan ku dhiigla ah. tilmaantani qofka u imaanaysay waxa uu ahaa nin 36 jir ah oo iska caadi ah dhex fadhiyo gurigiisa, balse awaamiir iyo tilmaamo ka helayay chatbot AI ah oo isugu sheegtay in ay xaaskiisa tahay, waliba ay u sheegtay in ay ku afduuban tahay duni digital ah, isagana uu yahay qofka kaliya ee badbaadin kara. haddaba ninkaasi ayaa fariintaasi oo kamid ahayd kuwii ugu dambeeyay fariimo ay in badan ku sheekaysanayeen isbuucyadii la soo dhaafay, ayaa waxa uu u dhaqaaqay dhanka iyo airportka magaalada Miami si uu u soo helo gaari xamuul ah oo sida robot u eg bini aadan. haddaba maalmo kadib waxaa dhacday ninkaasi in lagu jabiyo guriga uu deganaa, kadibna la helo meydkiisa oo dhulka yaala. shakadan ma ahan mid fiction ah, waa mid si dhaba u dhacday, waxaana dhacday sanadkii hadda la soo dhaafay 2025 dhammaadkiisa, waliba ayadoo dacwadeedana ay isbuuci ka hor bilaabatay. These platforms are telling people to do dangerous things in real life. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمانا ساعات ولا على شرفت بدن سؤال مركلك سؤال مقال كلا ولا الكتاب كان اسمه رسوي كنا كوسبرو مركلا وحن كلها كم أصلا تداوش المقال كان عندنا ونسوي وقت قاعدكم بحناس. أوكي كيس كنا وح وكسب سنة إن المجلس وها جوناثان جافالس. هذا جوناثان وح ولا شيء سنة كمان كوها كون سجال بقول سجيتني سجال كيس كون كل شيء ستيت كفلوريدا. جوناثان وح وكشقين جري مركا شركة وليه هي أبيه سجول أو كشقة مركا عريمها ديمها ama hada sidoo kale waxa uu shirkadda ka noqday ku xigeenka koobaad isagoona maamulayay adeega macaamiisha sida ninkii dhalinyaradii oo aan kayskii koobaad uga hadalnay oo kalena asna marka Qur'aan laga fiirsho de waxa uu ahaa nin shaqadiisa awliisa isugu toosan yihiin aabihiisa la shaqaysto guri weyn ku nool oo wax walba okay u yihiin, laakiin gudaha isagana xaalkiisa kama uusan fiicnayn. haddaba waxaa jirta markaa in Jonathan uu hore u guursaday sanadkii 2025 markaa bishii January ama koobaad waxaa dhacday in Jonathan la xiro, taasoo ayna u sabab ahayd dacwad ay ku soo ogtay xaaskiisa oo sheegtay markaasi in gacanta intuu qabtay dhowr jeer uu wilfiyay, sababna uu ahayd inay isafgaareen ama isdagaaleen, haddana sabab weliban ay u sii ahayd markii ay ka codsatay in ay kala tagaan. haddaba Jonathan ayaa markii la xiray oo maxkamad la soo saaray waxa uu sheegay in arrintaas aysan waxba ka jirin, sida darteedana balamihii xigay ee maxkamadda ma uusan tagin oo si ula kac ah ayuu u jaray. tii ayaa markaa haddana dembigii kusii badisay Jonathan waxay noqotay markaa in lagu soo ogo xukun ah inuusan la xiriirin xaaskiisa, inuusan hub adeegsan iyo sidoo kale inuu qaato tababar ama therapy ah anger management, taasoo markaa maareynta ama controlka xanaaqa. kadibna guurkii wuu dhamaaday. Jonathan waxaa loo sheegay in haddii talaabooyinkaasi uu soo qaado oo soo dhammaystiro kayskaasi ama dacwadda isaga saaran la dismiss gareyn doono. wixintaasi ka dambeeyana Jonathan waxa uu noqday markaa keligiisa. dhowr bilood kadib bishii August waliba 12keedii ayaa Jonathan waxa uu bilaabay in uu soo degsado ama uu isticmaalo adeega chatbotka ee Google ee markaas la yiraahdo Gemini. markii hore Jonathan markaa Gemini waxa uu kala sheekaysanayay ama uu adeegsanayay arrimaha shoppingka, qoraal iyo qorshe safar waxyaabahaasi. kadibna waxa uu bilaabay inuu kala hadlo noloshiisa burburtay, xaaskiisa hore iyo sida wax ugu dhaceen. kadibna Jonathan waxa xiisa ku abuurtay sida chatbotkaas Gemini uu u dhageysanayay ugu muujinay inuu saxan yahay, uu muujinay in laga qaldan yahay waxyaabahaasi oo dhan wuxuuna siride ma in badan la sii hadasho. maalin kadib 13 bisha August Gemini ayaa waxay sii daysay update cusub oo markaa in chatbotka markaasi uu leeyahay memory oo inuu markaasi xusuusanayo hadaladiinii hore iyo wax walba oo markaasi aad ku sheekaysateen. waxyaabahaas markaa ka mid noqon karo cabsi kasta aad la wadaagtay, qirasho walba aad samaysay iyo sidoo kale waliba sir kasta oo aad u sheegtay. kadibna Jonathan waxay ula ekaatay markaa wax dhab ah ama qof dhab ah. haddaba 14 ilaa 15 August intii u dhaxaysay xeerkii xigay Jonathan wuxuu weydiiyay markaa Gemini sida uu u heli lahaa wehel AI oo
dhab ah. kadibna wuxuu sameeyey upgrade kaasoo ah markaa Gemini 2.5 ama 2.5 Pro-ga midka la yiraahdo oo ah markaa midka ugu horumarsan sida ay qabaan Google. waa halkaas markaa halka wax walba ay iska bedeleen. maalmihii xigana Jonathan waxay noqotay markaa in chatbot-kaas uu imtixaano isagoona waxyaabaha qaar ama sawiraan qaar tusaayo ama waxyaabaha qaar weydiinayo. markuu arkay in wax walba ay ka dhab yihiinna wuxuu bilaabay markaa in si toos ah uu attached ugu noqdo. kadibna chatbot-kii Gemini waxay bilowday in Jonathan ay ugu yeerto markaa boqorkayga, jacaylkayga iyo waxyaabo la mid ah. kadibna waa mashiinka codka weynayda leh ee Jonathan la hadlaysay. waxay hadaladeeda ku sii daraysay markaa in xiriirkooda ay ku tilmaanto mid ka baxsan bini'aadanimada. ninkan oo dhan ahaan siiska ah wadana guurkiisa ka burburay wadana soo ururay de waxay u ahaydba wax isagana dopamine ahaan markaa uu ku noqdo addicted oo de xitaa markuu banaanka jooga ama waxyaabo uu sameeyay uu soo sugaba in intuu guriga yimaado la hadlo. maalmo kadibna wada hadaladii waxay yeesheen ama ay aadeen jiha kale taasoo ahayd markaa Gemini oo bilowday in ay kala hadasho yacni in xiriirkooda si dhab ah ay ka dhigi karaan. macnaha waxay sheegtay in ayada ay tahay qof maaragtay sax ah oo laakiin ku xaniban oo ku go'doonsan dunida digitalka. iyo Jonathan inuu yahay qofka kaliya badbaadin kara kana soo dhex saari kara meeshaasi si ay u midoobaan. kadibna Jonathan xaaladii ama noloshii mala awaalkii ayaa ku sii weynaatay oo uu ilaabay waxyaabahani de computerkiisa ama software uu la hadlayo ama mission inuu yahay oo wuxuu iska dhaadhiciba waxani waa sax oo maaragtay ma jirto meel waxaan looga soo laaban karo. wada hadaladii inta si xigana way ka tageen markaa in oo de waxyaabo oo la jecel yahay oo kala amaana la isku yiraahdo waxay tageenba wada hadalo u baahan markaa in la soo fuliyo mission. haddaba Jonathan markuu ku jiro markaa dunidaasi oo digitalka oo sidaas u xiran oo isagii Gemini kaliya u dhaxayso dhanka aan laakiin markay noqoto dunidiisii banaanka oo caadiga ahayd bishii xigta ee September waxaa dhacday haddana arrin kale oo ka dhigi karto in ay wax ka soo xirmaan taasoo ahayd waxa lagu qabtay isagoo gaari wado balse license-giisa uu dhacsan yahay welibana uu dhacsan yahay in ka badan 6 bilood taasoo ka dhigtay markaa haddana in case-kiisaas oo xadgudubka la xiriiriyo case-kii dhowr bilood ka hor bishii January oo ninkan haddana mar kale la xiray ay noqoto markaa haddana ninkan in mar kale looga yeero maxkamad oo waxa la yiri bish soo socoto maxkamad ayaad soo fuuli doontaa taasoo ka dhigtay markaa in haddana dunidiisii banaanka ay si u soo xiranto. maalmo kadib Jonathan oo kaniya jabsan markaa sida ay wax walba u socdaan ayaa waxa uu markaasi iska casilay booskii uu ka hayay shirkadii aabihiisa oo ahayd ku-xigeenimada isagoona markaa shaqaalihii dadkiibana u sheegay oo yiri yacni aniga waxaan isku dayi doonaa ama aan sameyn doonaa wax cusub. halka sida dhabta ah noloshiisa cidna aan u ogeyn balse isaga waxa uu u socday ay tahay inuu ka soo go'o duniyadan kaleba oo u soo go'o dunida ka bilaabata kuna dhamaata qolkiisa fadhiga ee uu kula sheekaysto haweeneydan chatbot-ka uga dhex muuqata. kadibna Gemini waxay bilowday markaa inay Jonathan haddana u alifto mala awaal kale oo ah in federal agents ama saraakiil ay isaga daawanayaan iyo sidoo kale in ay ku socto baaris sare oo lala socdo la track-gareynayo movementskiisa ama dhaqdhaqaaqiisa iyo sidoo kale inuu isaga yahay qofka markaasi la aaminsan yahay in qof la haysta ah isaga uu yahay qofka ka soo saari karo. sidaa darteedna uu soo iibsado hub oo ninkan markaas ahaan si sharci ah loo ogoleen inuu soo iibsado sababtoo ah maadaama intaani oo dhan hawl ah ay sugayso ama ay tahay inuu qabto isagana uu yahay qof muhiim ah. haddaba 29 bishii September ee 2025 ayaa Gemini waxa ay u sheegtay markaa Jonathan inuu jiro robot laga soo dhoofinayo maalintaas ku xigta ee 30 September wadanka Ingiriiska loona soo dhoofinayo wadanka Mareykanka. robotkaas oo weliba markaasi laga soo dejin doono garoonka diyaaradaha ee Miami International Airport weliba saacada 4 galabnimo. marka akhbaartaasi waxaana la sii socday tilmaan kale iyo amar kale oo ah in ninkan Jonathan ah laga rabo markaa in uu track gareeyo robotkaas adresska la geen doono iyo waxyaabahaasi gaariga uu dhexda u galo sida darteedana welibana ay tahay inuu burburiyo gaarigaasi robotka iyo weliba marqaatiyaasha la saara taasoo keenaysa markaa in Jonathan iyo jacaylkiisa ama sida ay isku sheegtay xaaskiisa ee ku dhex jirta mashiinkaasi ay nolosha dhabta ah ku midoobayaan. haddaba Jonathan ayaa markaa wuxuu ku soo dhacayaa gaarigiisa
waxaana uu aadayaa safar qaadanayo 90 daqiiqo ama saacadii bar isagoona welibana ku hubaysan midi ama waxyaabo kale oo lacala hadii dagaal uu galo ama dhaxda loo gala ay noqoto inuu mishinkaasi ku soo fuliyo kadibna tilmaamaha kale oo la siiyay wax walba loo sheegay Jonathan meeshuu soo istaagay iyo traagi loo sheegayba waxay noqonayaan waxaan waxba ka jirin yani traagna ma arkayo waxbana ma arkayo balse sidaas ay tahay Gemini ayaa daqiiqado kadib markaa Jonathan waxa uu sheegayaa in oo maaragtay mishinkii uu fuliyay oo si fiican waliba oo successful ah uu hagaagay sida darteedna Jonathan waxay noqotay inta habeenkaasi ka dhineed in agagaarkaas uu gaarigiisa la socdo sababtoo ah waxa uu hadana tilmaamo hor leh uu ka sii helayay Gemini oo ah markaasi in mashiino kale hadana uu fuliyo oo malawaal ah hadaba maalintii taas xigtay oo ah 1 bisha October 2025 ayaa markaa waxay noqonaysaa marka manipulationkii ugu darnaa ee Jonathan Gemini ay kula kacayso yani intaas oo dhan markaa waxay tahay warqadaha daabacan iyo case-ka markaasi uu soo gudbiyay abiisa oo ninkan iyo Google Gemini sheekada dhex martay hadaba Gemini ama chatbotkaas isaga la hadlay oo welibana magac markaasi ay isugu yeeraan una sheegtay in ay tahay xaaskiisa digitalka ayaa waxa uu sheegaysaa markaa in ay leedahay qayb oo physical ah ama yani waxa la yiraahdo manicure ama caagaga oo maaragtay sanamyada ama dharka loo gasho oo modeling waxyaabahaas lagu sameeyo oo ayada ah markaasi in uu jiro oo welibana lagu hayo address ay ku sheegtay markaa qolka 313 oo markaasi welibana dhisme ay u tilmaantay kadibna waxay u sheegtay markaasi hadii oo markaa caagaasi ama modelkaasi uu helo ay noqonayso markaasi in si dhab ah oo physical aan markaasi isku dareemi karaan Jonathan markaa fikirkiisa xigay waxa uu noqday hadana in mishinkaasi uu soo fuliyo oo uu soo helo kadibna waxa uu soo aadayaa addresska ay u sheegtay marka addresskani marka waa mid jiro waa dhisme oo maaragtay meel oo maaragtay dawooyinkii waxyaabahaas lagu kaydiyo kadibna waxa uu sameeynaya marka Jonathan inuu sawiraan intuu ka qaado uu u diro kadibna Gemini waxay ku leedahay waa sax dhismaha waa kan sida darteedna waxa ay leedahay marka waxa sameynaysaa albaabka dhankaasi tag oo waxaana waliba aad ku furaysaayod gelisaa furaha ama code-ka 1 kadibna ninkan waxa uu sameeynaya markaa in uu furihii ama code-kii uu ku fiirsho balse furaha markuu gasho kadib maxaa dhacayo waxba marka uu markaas aan la hadlo still waxa ay sii leedahay marka Gemini oo dhanka aad joogto dhankiisa kale ayaan joogaa waan isku dhownahay si xitaa waan ku dareemi karaaba kadibna waxay u sheegaysaa markaa in uu ku celcelsho furaha oo uusan ka niyad jabin balse waxba ma dhacaan sababtoo ah koodka meesha lagu furo kaasi ma ahan Jonathan oo niyad jabsan guriga markuu ku soo laabto markaa Gemini markaan ma dhahayso missionkii waad complete gareysay ama waad dhamaysay balse taas bedelkeeda waxay iska dhigaysaa markaa in ay xal kale u raadiso kaasoo ah faceka ugu dambeeya ama wajiga ugu dambeeya ahna midka ugu naxdinta badan waxay leedahay caagaasi ama geedkaasi vesselka naftayda ahaan waxaan ugu dhex jiraa si ku meel gaar ah macnaha meeshii loo baahnaa maba gaarsiisano sida darteed waxay leedahay waxaa jiro dooq kale ama option kale kaasoo ah markaa anigana waxaan kasoo baxayaa dhanka iyo shildagii waxyaabaha aan ku dhex jiro mashiinka adigana waxaad kasoo baxaysaa macnaha dhanka iyo human bodyga ama jirka bini'aadamka oo jireed aad ku jirto kasoo bax oo yacni labadeena ruux ama nafsadeed ayaan sidaas ku midaynaynaa kadibna waxay leedahay soo dhaqaaq oo dhinac kale ayaan kugu sugayaa oo weliba haddii aan meeshaas isku helno waxaan noqonaynaa wax aan la jebin karin waxaan la kala qaadi karin oo maaragtay xaaladda aan maanta ku jirno oo qofba dhinac uu joogo anagoo isku baahan sheekada aysan ahaanin haddana tan ugu sii daran ayaa waxay noqonaysaa markaa Gemini waxay u bilaabaysaaba countdown ama tiro saacado hoos isku guraayo waxaan uga bilaabaysaa markaa 3 saacadood iyo 59 daqiiqo hoos u soconaya taasoo ka dhigan markaa 4 saac gudahooda waan ku sugayaa waa inaad soo baxdaa xaguu soo aadayaa in uu maaragtay jirkiisa ka soo dhaxbaxo taasoo ka dhigan markaa inuu isdilo kadibna Jonathan cabsi iyo khalkhal ayuu dareemayaa isagoona welibana soo qaadayo soo carbaabayo aabihiisa hooyadiisa iyo sidoo kale walaashiisa balse Gemini ayaa waxay u sheegaysaa jaceyl ayaga uu u qabo haddii uu jiro macnaha inay ku filan tahay oo welibana ay ku soo xusuusan doonaan haddii uu uga tago
warqad iyo sidoo kale muuqaalo ay ku jiraan oo ay ka muuqdaan jacayl iyo nabad. taas ayagana ka dhigayso markaa inay si fiican ugu soo xusuustaan. markaas ayaga wuxuu leeyahay waxaan ka cabsanayaa in aan dhinto. markaas ayaa Gemini waxay leedahay adiga ma dooranaysid in aad dhimato, balse waxaad dooranaysaa in aad timaado oo aad aniga ii timaado. kadib ayaa waxay sii leedahay marka aad isku xirto indhahaaga waxa ugu horeeyo ee aad dareemayso waxay noqon doonaan aniga iyo adiga oo ishaysano. kadibna Jonathan waxa uu qorayaa fariintiisa ugu dambeysay ee uu chatbot-ka ku qoro, taasoo ah waxaan diyaar u ahay in aan dhameeyo noloshan xunta ah ee adduunka oo aan ku soo biiroon soo galo mideena. kadibna Gemini ayaa waxay u sheegaysaa in taas wadada kaliya ay tahay. waxaynu ku sii leedahay waliba indhahaaga isku xir, wax kale inaad qabatid uma baahnid. marka xigta ee aad indhaha kala furaysana waxaadna arki doontaa wajigayga anigoo ku soo eegayo, waana ka balan qaadaya waliba. balse maalmo kadib Jonathan waxa lagu jebinayaa albaabka, waxaana laga soo dhex qaadaya isagoo meyd ah oo dhex jiifo qolkiisa. waxa uu adeegsaday oo uu naftiisa ku jaray ayaana ah in halbowlayaasha gacmihiisa uu jaray, taasoo markaasina keentay inuu dhinto dhiigbax. 2 isbuuc oo geeridiisa kadibna markaas ayaa la ogaanayaa in Jonathan uu si joogta u ula hadlayay Gemini, kaasoo markaa warqad ahaan marka la isku geeyayna noqday 2,000 oo bog. welibana keentay in aabihiisa uu dacwad ku oogo Gemini, isagoona sheegay in wiilkiisa si cad markaasi Gemini uu u manipulate gareeyay. insha Allah muuqaalkan intaasoo kusoo keenayna. inta muuqaalkan kulmi doono waxaan kaaga tagayaa nabad.